marka intaas ay anaga hadda ku xaqiijin karna inayna furin jirin inayna furin. marka freshka wuxuuna na dhahay aniga ka soo hadli doona anigana warka soo sheegi doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta sarafta le meel walba joogto waalidin fadlan haddii channelka aad ku cusub tahay subscribe sar hana ilaawin in like sartid oo waa noo muhiim. maanta qodobka kaalmana waxaa waaye arrimo laisku haysto lamaanayaal qarniga oo horaan kaabka qaaday lamaanayaasha ay ku leeyihiin waxaa waaye dadka hadda lagu dhagan yahay muuqaalka social media meel kasta saasta u goysid labadooda le saaran balse dadka qof kasta way kala duwan yihiin shanta farood si u kala duwan yihiin dadkana u kala duwanaa. marka asxaabta sharafta leh maanta waxaan rabnaa xaqiijinta inaan nii sheegno anagoonan asiga lamaanayaasha qarni aan gudaha uga laakiin warka socdo iyo saan wax u maqalnay inaan ininka nila wadaagno. marka warka waxaa waaye Rashka Boy is my best friend. Cabdirashiid waa wiil saaxiibkayga ah, aad ayuu ii qiimeeyaa, aadaan u qiimeeyaa. mida kale Xafsa dumashida ayadana sayida u salaamay, Xafsa waa ku salaamay iyo Rashka. marka maanta waxaan rabaa inaan halkan ka warbaahiyo oo caddeeyo runta in labadaa qof uu muuqaal dhex maray. Rashka gabar kale oo ma garanaani waxay isku hay laakiin uu muuqaal dhex maray. dee anaka dumar farad badan muuqaal dhex mara. mida kale haddaad rabtid wax duubtid waa inaad gabar kale u tagtid ama wax aad markaa wax duuweysid qaab kasta ee gabar kugu imaan kartaa, filim kastoo aad duuweysidna way dhacdaa. marka sida tan hadda muuqaalada dhex socdo oo hadda social media leeyahay Rashka uu ka tagay Xafsa uu furay kan horta meesha furtaan ma jiro laakiin gafa ayaa jira. waa la isgafaa, nin iyo xaaskiisa way isgafaan hataa hadday kala tagaan. arrinta waxay taalaa waalidka siday u xalin lahaayeen. marka anaga ma ahan inaan booqno oo dhahno anagoona war haynin wuu furay intuu ka baxay kan waaye no, waa laga fiican yahay. marka ila daabo muuqaalada hadda laga hayo Rashka Boy iyo gabadha kale. muuqaalada laga hayo waa TikTok, Instagram. wallaahi aniga ma gafi karo inay tahay muuqaalka inuu yahay inay isla socdaan. wallaahi ma gafi karo laakiin muuqaalka daawo. 3 muuqaal ayaa laga hayaa, 3 muuqaal oo social media dhex socdo. mid waa kan okay, mid waa halahaas TikTok ayaana laga hayaa. TikTok waaye waxaa lagu soo warbahayay oo lagu sheegay arrintaas foosha xun. marka my brother Rashka, maadaama hataa gabadheed aysan ahayn mid adiga aad wax isla duuweyseen ama aad wax la haweynaysay, laakiin muuqaalka horta uu soo baxay qofkii fariintaas meel kasta ku diray asag iyo ilaahaygiisa u taalaa. marka anaga maanta waxaan runta caddaynaynaa oo aan sheegaynaa runta inay isgafeen oo muddo bil ay kala maqan yihiin. marka intaas ay anaga hadda ku xaqiijin karna inayna furin jirin inayna furin. marka Rashka wuxuuna na dhahay aniga ka soo hadli doona anigana warka soo sheegi doona. mida kale foosha xun oo aniga aan la yaabay muuqaalkiisa markaan galay wax horta muuqaal ku jiro oo Rashka iyo Xafsa isla soo dhigeen horta waa laga saaray. laakiin taas waxay ku dhacana ma aqaano balse gabagabadiibo. marka muuqaalka kale ila daabo dhafarta. والله دفرك والله فرح بالله قرحة بموضع ما يدري حقك فرح بالله وجهك بكده تشك فرح لها هي أفكا ملحة لها waa ujeedaa muuqaalkaas horta aniga ma dhihi karo because dad fara badan dhaha dhafar waa laba qof oo uu soo dhafray intaasoo beri uu soo jeedaa dhici karta. maybe waa acting wuu sameyn karaa, acting wax ilaa lagu sameyn karaa. acting weliga qof actor weliga ha dhihin
islaamka lagu ka aadiyi kama qofka hadduu actor yahay dumar fara badan uu soo dhigi karaa romantic uu la jeli karaa laakiin ma ahan inaad dhahdid uu guursado oo ka tegay sidan waa okay Rashka boy my brother waa laga sugayaa jawaabta si degdeg ah laga sugayaa social media oo dhan adduunweynaha dhan ayaa ku sugaya waxaa tahay qofka ugu horeeya oo ku guuleysaday koobka qarniga lamaanaha marka haddii foolxumadan ana hataa waa ka xumaaday laakiin inkastoo hadala yahaan waa laga sugaya warka video kale oo laga hayo Rashka laga hayo iskaabuloy imisa idin dhahay guursada iskaabuloy guurka waa nolol waa raaxo iyo farxad fadhiga kaca oo guursada iska aroosa saana u raaxaysanaysaa jawiga macaanka badan kaal iska arag hay had see waaye nolosha guurka tii hore ka fiican waatan anay midda qaracan igu riday oo aan la yaabay oo niyadda iga mana aqaano inay runtahay inay been tahay balse asaga ka sugayna jawaabtaas muuqaalkaas aniga horta inuu dhahayo noloshii hore iyo tan tee macaan marka asxaabta sharafta leh anaga ma dambaabi karno oo dadka uma hor qaadi karno mana dhihi karno asagaana qaldan asagaasana sidan waa ma dhihi karno laakiin jawaabta asaga afkiisa ayaa laga qaran karaa anaga ma kugu dambaabi karno saaxiib waa ku taageernaa asxaab fara badan oo leeyihiin waa aragnay leeyahaan Xafsa ayaan u jeclahan muuqaaladiis markaan daawanayna Xafsa dartoodan ku daawan jiray wow ma aqaano wallahi dadka sida u qaataan meel kasta laakiin weligaa wax aadan ogey degdegin hubso marka asxaabta sidaas aan nigeysi tagaya aad iyo aad u mahadsantihiin fadlan haddii channelka ku cusubanta subscribe sar like tana sar aad iyo aad u mahadsan tahay thank you